qofki dareemi karo qof la dhahay waa dhintay xilli dambe waaye waalidkii iyo walaalkii iyo dadkii asxaabta kula ahaayo dhan waa wada naxayaan shaadii gurigeeda la xabado lagu furay shaadii war waa nabad qabaa waa ay kaas gurigeygan jooga aniga hadaad dhihi lahayd xilli hore waaye iyo xilli dambe waaye 15 qof wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan duhur wanaagsan galab wanaagsan xilli walba ku tahay wanaagsan xilliga muuqaalkan aad daawanayso wanaagsan isu soo naqadam xiiso leh waa anigoo nabadoonka YouTube-ka walaalkiin Maxamed Buskud halka toos noogala socotaan waa channel-keena Maxamed Buskud official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markii ugu horeyso soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid kambalelka furo rukuma channel si aad u noqoto qof ugu horeeyo na daawado hadda hore inoo la socotay oo aad kamid ahayd asxaabta hore nagu xirneed waa ku maasanta la sii joogitaankaaga videoga like saar like waxay noo taraysaa waa dhiirigelin like waxay naga caawinaysaa muuqaalka inuu meel dheer gaaro muuqaalka meel dheer hadduu gaarana asxaab cusub wanaagsan oo adoo kale inay nagu soo biiraan like dhiirigelin bay noo taho daily inaan inta soo fadhino soo daldalno warkaan idinku soo dhurno ayay naga dhiirigelinaysaa waa ku mahadsantiin like nabadoonka war wax kale baan ku wada hadalno like nabadoonka marnaba yeelan yani wada hadal yeesan kale biyahaas oo kale markaad soo galaysid channelka adoo like ta wata soo gal maalin kale cusub maalin kale qurux badan jimco mubaarak jimco jamiil isu soo naqad dambe xiiso leh anagoo caafimaad qabnay idinku caafimaad qaba hadda isu soo laaban waa alxamdulilah waxaan rabaa marka arrin aad iyo aad u soo laalaabatay oo gabadhan walaashiina hataa markii labaad ay ku dhacday ayaan rabaa inaan wax ka dhaho Soomaalidan aan runta u sheego iyo waxa ay ka faa'iidayaan arintaas oo ah Shaadi Sharaf oo la yiri way dhimatay mar kale walaasheen to ka horan waa ogeedeen maray xanuunsaneed oo isbitaal ay gashay xoogaa yar la soo daweeyo gacanta wax yar ka gaaray ama irbad la soo duray la soo geli social media inay geeriyootay Shaadi Sharaf oo la yiri way dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi horta ko waxaaba jirba TikTok ku jiro oo qofku ku soo qorayba muusikado calaa inta saaraan ay hadii la saar muusikada waa iska khushuucay muusiga calaa inta la saar inna lillahi kullu nafsin dha'iqatul maut loo soo qoray Shaadi Sharaf ay soo qoreen ayaan dhaween Nuurdin kay ala arkay war qof la reebay ma jirto maanta Shaadi Sharaf ayadana ma aysan aamusin afkay furtay way soo qaylisay way soo hadashay bal ila daawad wax yar qofki dareemi karo qof la dhahay waa dhintay xilli dambe waaye waalidkii iyo walaalkii iyo dadkii asxaabta kula ahaayo dhan waa wada naxayaan sug raali aada ya codka gaabsana hadda noogu celinaya bal ila dhageysta miskiin si ugu qaylisiyeen qofki dareemi karo qof la dhahay waa dhintay xilli dambe waaye waalidkii iyo walaalkii iyo dadkii asxaabta kula ahaayo dhan waa wada naxayaan waa saxo maanta qofka xataa haduu kula joogo oo guriga ku ogeed haddana Muqdisho uu ku nool yahay qarax dhici karo wax dhici karo dhib dhici karo amnigeed uu sugneen ilaahay baan kugu dhaaray qofka hatta ka soo tagtay la hadlaysa u dhinadii uu dhaxta waad naxaysa bal maxaad ka faa'iiday qof walaalka geeridiisa maxaad ka dhaxlay hada wax ka helaysid wixii lacag u sameey dhaqaal u sameey dan u sameey waa la dhigi karaa laakiin qof walaalka oo muslina wuu dhintay in aad dahdid maxaad ka faa'iiday walaalo Shaadi Sharaf waxa aad way dhimatay ehelay leedahay hooyay leedahay walaalay leedahay ninay leedahay qaraabay leedahay soomana xayaan dadkii gobolada iyo meelaha jooga ajaxiseed ayaan dhuu wax la oysiinay dhageysta Shaadi gurigeeda la xabado lagu furay Shaadi war waa nabad qabaa waa ay kaas gurigeygan jooga aniga hadaad dhihi lahayd xilli hore waaye iyo xilli dambe waaye 15 qof wada faleeba magaalada soo dhigta maxaa ka warba waxa ay suuq soo gelin gurigeeda la xabaday guriga lagu weeraray Shaadi waa dhimatay xabadiya ku dhacay Allah u naxariiso kullu nafsi dha'iqatul maut sawirkeeda iyo videogeeda la soo saaray TikTok la wareej horta page dana waxa jir TikTok oo dadkii noolay dhan waa dhinteen la soo leeyahay qamar suugaani maalin wala soo dhigay Nuurdin KL ayaan dhaweyd wayna waa aragteen Ajax waad aragteen war inta qof ee bulshada magac ku dhaxleh maxaad ka faa'iideysiin bal guriga hoobiye ku dhacanaadeen guriga la xabadiya dhaadeen maxaad ka dhaxashay maanta ishay bal dhageys waxay dhaheen xilli hore waaye iyo xilli dambe waaye 15 qof wada faleeba magaalada may maxaa dhimashay waa kana dhageyso
jooga aniga waa kana waa ay kaas guriga shaadi war waa nabad qaba waa ay kaas gurigaygan jooga aniga hadaad dhihi lahayd xilli hore waaye iyo xilli dambe waaye 15 qof oo wada faleebaa magaalada soo dhigta maxaa dhimasho igu saadinay ya dhimasho maxaad ugu saadinay qof walba uu dhimanaa waqtigiisa ma weynaaye walaalow ilaahay ka cabso wax kaloo ku tilmaantida jirta qof walba waqtigiisa ma moodaa adiga waqtiga ma dhaafaysta maxaad ka raadinay marka والله waxay tir hooyadii intii daraabadii qaraabadii ehelkii oo dhan meel aan laga soo wicin male malagista الله مهران عوسك جيلال ولا دمنا إلهي كعبسده مسلم حلاله داد تهي halkaas qof oo muddo wallahi ma wax xanaaqsanay waxana faafinaysid walaalo iska daa waa hal qof snapki tiktokiisa waad aragteen hal qof waay in report la dhaw hawada laga bixiyo waa ninkaas war sawir uusan wadin dadkii maxamed bikay xataa maxamed bikay intuu fanka ka bixin oo maxamed mubaarak oo baxsan loo bixin حتى ولا ولي قف آن لودي مال سومالي رد بلاي عنها ونقطه سومالي مالنتاد عن ونقطت واهوتي محاد كفائدي سو اشا ماشي تعالى waxay tahay war marka dadka qaar youtube ka soo fadhiisanaya oo qof heblaaya saan qof hebla saan qof heblo saan ama waxyaabo been sheegayaan waxa dhigi kartaa dadka ay soo gaadayaan oo views ay rabaan inay ku helaan oo views haday helaan lacag bay ka helayaan adigu maxaad ka faa'iiday qof dhimashiisa oo tiktok soo gelis lacagna ku heli maysid وأن أجين سومالينا لايك كوساري ماين لوف نكوساري ماين والإلهي كعبس مسلم حلال داتا يا قفك بني آدم كا ضدع كتنبايو حاول دلي ضد كلمة دلي قفك ملك إلهي وكاني هدلو صحوة قف ملك وقت يجيس هسوه هاد انتو لكن أفكان الضد كات كوبا بيسي ولا لو اسكالاف ولا لو اسكالاف إلهي كعبس والله قبر ولا شاء أم ويل ولا لك أم هوي ولا هوي ذا وكلا إن تكني حسيت أم نك أكني حسيت أم فملك أكني حسيت والله إن الله كفايدين والله وبالله وطلع حبت كفايدة ميست تصنكوها يعني وإنه شيء ويفرد ذا واكن بل هرت فيريا وساقر تبلا وايد متاتي يعني ده ديرنا أقول شيء تبلا وايد متي أم هي بلسان ونقضي أما فيديو بينات كسو هذا شيء أما موضوع بينات كسو هذا شيء أما واحد قلدنا كسو هذا شيء أو بينه فيوس واكو شيء مركز كسو فيريا tusaalo waa lagu daawaday dadkii waa sirtay views badan ku heshay meesha rabtay way ku gaartay wixii rabtay waa ka heshay laakiin birika maalin hada dadkii runta u sheegtay oo soo hor fadhiisatay say kugu aaminahay marka waa ilaa waxa leeyahay beentaadii hore runtaada dambe u baasbaxay been mar hadii lagu barto wallahi oo billahi oo tala inaan wax shayis alla aaminay midna ogo wax aad run iyo nadiif iyo cadaalad aad ku weysay inaadan been ku helin magacaad run ku weysay inaadan been ku helin sharaf aad run ku weysay inaadan been ku helin views aad run ku weysay inaadan been ku helin qofka bini aadanka dada ka dambeeyo xaa u dilay dadka lama dilay qofka malag ilaahay u keenay hadilo waka taraab dhaw wala taraab dhas warka qofki daree makasa هذا نوع حماه والله بالله هذا نوع حماه هذيك أنا واحد سميني يصير ريت تيك توك قفك بلوك هلا صار ريبوت هلا صار والله هو ذوك بحيا ريبوت ده رجاه كلا قاعدين وناسا كلا قاعدين هو بحيا قفك I'm sorry والله واحد قبله ولا شيء نقول عاي واقحنا لما الشضع يوحنا ده توك سعيدين يسين إلهي كعب صدق Soomaaliya iska dhaafa arsaaqada wax xalaale oo nadiif ah oo run ah ku raadso dadka badana waxyaabaha beenta saac u soo qoro ama fiidiyoyadan dadku way dhinteen soo dhaho beenta 24 saac social media wado waa dadka aan wajigooda keenin social media wajigooda way ka qariyaan qofka wajigiisa keenay social media beentiis waa yartahay waxay iska badnaata xataa laakiin xoogaa waa uu dhaama laakiin dadka dhaay hebel way dhimatay weli qof oo caadi wajigiisa la arkaayo ama youtube haada ama tiktok haada sidaan oo kale u soo horfadhiyo kaamirada oo hebelahay way dhimatay hebel wuu dhintay dhahay ma jirto wuu gabadaa qofka maartay adinka ma jirto tuug waxay sawira wax la soo saaraa muuqaala wax la soo saaraa hebelahay way dhimatay hebel way dhintay muusikadu hadda waxaaba timidba war maanta aniga shaahan kafeen shubtay kafeen cabaya بكير قروح بدن يوجد هداد هذا موسيقى على عالك لو صار كل رنا أمانة واسك خشوع موسيقى ده وحي برتين ضد كيو ضوء خشوع عنب هذا العادة لو صار وحاسلات قف كهدو عيت ما يحتاج أبو تيك توك ده صار برت
qofka ducaaytima xataa muusikada waxaa loo soo saaray calaacala dhegeysta shaadi hal mar last qofki dareemi karo qof la dhahay waa dhintay xilli dambe waaye waalidkii iyo walaalkii iyo dadkii asxaabta kula ahaayo dhan waa wada naxayaan صح يا شادي gurigeeda la xabada lagu furay shaadi war waa nabad qabaa waa ay kaas gurigeygan joogaani hadaad dhii lahayd xilli hore waaye iyo war guriga aan waa joog wiil ajin aaba joog nina joog maxaad ka faa'iideysin guriga lagu galay waa lagu xabadeey waa lagu laay waa iska soo balqor commentiska waa ka fiir aba ma cad ilaahay ku daayo ilaahay ku dhibiyareeyo sorry waa ka xunahay sorry dadkii oo wasaas dadka wallahi billahi oo tala labada qof oo xun oo negative ka dadka gubtamoogi wallahi Soomaalida waxay u badan yihiin dad qalbi wanaagsan laakiin labada qof waxa jirto maanta 100 qof haday like ku saarto wanaag ay ka hadasho 5 qof oo negative wax xun sheego ayaa dadka dhan group warkooda soo qaadanay TikTok fiir gabadha video soo duubay wiil video soo duubay hore u socdaa ma santahay waa fiican tahay hore dad ma wax badan soo qoray hal qof soo item bis commentiga soo qaadan video ka soo sameeyay kunkaas uma jeedaan wanaag war qofka item ay oo commentiga negative ku qoray wuxuu xaqiijiyay ama kama seersan wuxuu xaqiijiyay oo niyadiisa ku saxiixay in aad ka sarreeysid wuxuu u baahan kaliya inaad soo qaadato hadalkiisa haddaad soo qaadato hadalkiisa oo ku dhibo uu ka guuleysto marka ignore them wala ignore kareen haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow channelkeena subscribe na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado waa mahadsan